السلام عليكم أصحابتي إذا سيتهين ما في عنتهين وولاشين سادة كوكين مرنا إسكتكتا مرنا سو نقطة يعني مركا غاركد قفك ظروفكم مغلانا ياسو إن بدن حوغا هادا وان مغنا لك هادا سو نقضي ما أنت عشر كنا إنوغا سو توري aad aragtaan ee quruxda badan leh marka qaarkood way fiican tahay in yani fitamiin la cuno fitamiinku nooc walba ha ahaado soo maanta intaan maanta bocorkan iyo waxay soo karsanaa muuskan cagaarka ah iyo sweet potato-gan intaas maanta isku soo karana maasha Allah ismina diidayaan oo kullu way isqaataan waa isku wada karkarin kartaa waa isku wada shilshili kartaa waxay diidayaan mal hadda doonto ovenka gashan kartaa يعني ديسينكا doontid baad u karsan kartaa laakiin muhiimadeenu maxay tahay maanta nafaqo weyn in soo karsanaa mararka qaarkood jirka weyn fitamiin la galiya yani mar waxaa jirtay ma aragtay xitaa hargabku ku soo laabanayo kale soo markaas kale fitamiinka waa la iska farabadsadaa waxyaalaha oo saliida lagu shilshilayana waa la iska kala yareeyaa kolayna dhaqan bay leenahay lagama yaabo inay ka talaasulo wax saliid leh laakiin sida kalena waa isu nafaqeynaa maanta intan oo dhan baa isu geynay eggplant iyo matookehi halkan matooka laga dhahay laakiin nagu muus cagaaran buu noqonaa muuska cagaaran ama bislaan buu noqonaa yaanyo iyo kamsar iyo basal baa meeshan ku soo shiiday waana ku soo shubay wakana waxaan waa hilib shiidan haddii aad rabtid hilib kale caadi oo aan shiidnayn waa ku darsan kartaa ani laakiin hilib shiidan ma ku soo daray waxaan doonayaa inay maasha Allah isku soo baxaan oo sidan quruxda badan leh ay soo baxaan soo kana waa isku soo shilshilay iyaga cabaar baan dhac isku soo siiyay halkaasaan meel ku shubtay suugadan kala haddana ku soo shubay waxaan rabaa inaan alaabtan ku soo karsado wakana alaabteena soo bislaatay biyo cad baa ku soo karkariyay kan waa mooski alla kuleel badana saas uu gubi gaar ka bacdana waa ka cararay kana waa bocorkii kana waa eggplant baa waqaana hadda af Soomaali kale u taqaanid noo soo dabagay iyo sweet potato-gan iyadana galkan ka soo wada dhigay iyagoo dhan wayna soo bislaadeen soo waxaan rabaa in shaandhada aad arkaysid malqacada shaandhada ah aan ku soo burburi oo xabad aan laga arkin badanaa ma taqaanaa Soomaalidu ma jecla moogtahay khudaartan sidan markaa waxaan rabaa in maarta ay suugo iska noqoto oo suugada un lagu dhex cunayo rabaa marka hadda meeshan ku soo guranayaa asxaabta quruxda badan maanta casharkan quruxda badan inaga dabageyniyay haddii aad channelkayga soo booqatid waa iga codsi inaad subscribe iyo share ii sameysid adigoo aad u mahadsan asxaabtayda igu soo biirtay iyo asxaabtayda hore ila joogtay labadaba kaliya laaba in ka salaamaya waana aragtaan casharkan quruxda badan baa maanta soo daayay soo isku soo duceeyna marka qaarkood ducooyinku aad bay u qurux badan yihiin wakana waa ku soo guray horey suugadii oo aan karniyay oo hilibka shiidan aan ku soo sameeyay iyadana dhakada kaga soo daray wakana maasha Allah sidaana aragtaan baan isugu rogrogayaa ka bacdina waxaan ku soo darsanayaa xawaashiyadan hayo dhan haddii xitaa kamsar aad haysid waad ku darsan kartaa kamsar iyo toon soo marka qaarkood maxaa loo baahan yahay in cuntadeena Soomaaliga iska bedelno oo maasha Allah wax kale ku bedelno soo maanta suugadaas ay nii waday waxa rabtid baa ku cuni kartaa bariis baa ku cuni kartaa waxa doontid baa ku cuni kartaa